السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قيمة بدن كسو دوادا جنال كيغا كينا نايماس هوم. أصحابي وحنوسو سمي سقار هيلب كيلغا سمي يملو حيسا أو عشاء أو قراعة قدنا مديداي هداربتوا كدغان كرتا لكن ما شاء الله عشاء يا قراعة أد أو في عيا هدو إلهي راهدو aan kasoo tuureynaa hilib keelan soo qaatay oo aad u jilicsan meesha hilibka keelo ugu jilicsan oo filidka ah qofkii lo rabo lo uu ka dhigan karaa kii hilib ari oo waliba lugo baruur lahayn ka dhigan aan rabo uu ka dhigan karaa chicken xataa suqaar waa laga dhigan karaa adiga sidii aad rabtid wax u cilcishan kartaa maasha Allah aniga hilib keelan ka dhigtay hilibka keela aad u macaan yahay waliba markuu meel jilicsan yahay hilibka keela haduu mataqaana oo waqti fiican aasiisid wax ka macaan male number 1 waaye hilib la cuno number 1 hilibka keela waa marka maasha Allah ani ahaantayda waaye raayigayga marka asxaabay waxaan rajaynayaa videogan ina meel fiican gaarsiisaan videogii ugu dambeeyay aad u leetay isma lahan dadka aan haysto 500 qof oo subscribe iyo 100 qof xataa ma daawanin وانا ku tacabeelo shawarma ahayd shawarmada maasha Allah si fiican oo easy fooliyo qurux badan aan ka sameeyay waxaan rajaynayaa ina mataqaana 1000 iyo 2000 iyo wax lamid ah gaarsiisaan meel fog gaarsiisaan oo laagta u badisaan all in all hadeertan insha Allah videogan laga faa'iideysto qof ilaaliyo qofkii fiirsada laagta ha u badiyo qofkii aan subscribe na ahayn soo dhawow subscribe ta insha Allah noo badiyo bal 1k na gaarsiiyo marka hore haduu Ilaahay yiraahdo meesha waxaan ku soo diyaarsaday hilib oo jarjaran oo keelo oo nus kiilo ah iyo 2 xabo basal ah iyo toon xoogaa toon soo fiiqday dhowr xabo toon soo fiiqdan soo maashkareey ilidan dabka saartay waa basashiyan ku daraayo waliba video aad u waqtiyar oo boorsiisa malawax iyo suqaar hal mar ay idin soo tageeyaan marka insha Allah idinka ka faa'iideysta anigana iga faa'iideeyo insha Allah inaan meel fiican gaaro laagta loo dadaalo biyihiisi waa biyo ugu horeey waa biyihiisi marka daboolka saartay biyo dhalaya biyahaas ugu horeeyo dhalaya biyo fiican waayo waa waxa ugu horeeyo saliidaas iyo biyahaas oo ku bislaanayo waa daboolaysa wax yar ka bacdi hadana biyihiisi markuu uuqo u soo laabanaysa biyihiisi markuu dhameysto u soo laabanaysa hadana kalaas biyaan ku tari doona insha Allah kalaaska biyaha hadana waa lagu daboolayaa hilibka keelo uu adag yahay ma jilicsan sidiisaba xataa meesha ugu jilicsan haduu yahay wuxuu u baahan yahay waqti sida hilibka ariga iyo oo kala ma ahan marka kalaaska biyaha uu soo dhameystay ma sha Allah saas markuu noqdo waa ina dhadhankiisa ma taqaana waa inuu isla joogo wili cusbo iyo maan aan ku taran waa toon iyo basal iyo hilibkii iyo biyihiisi iyo hal kalaas oo kale halkii kalaas markuu soo dhameystay biyihiisina dhameystay hadana 2 kalaas filfil yar iyo cusbo yar aan ku daraa waa ku daboola hadhow karootada insha Allah videoga ma aqaan ma ka jaray ma karanaay karootada marka aan ku diraayo kuma jiro laakiin karootan ku soo daray 2 xabo karoota inta soo yareystay hilibka intuu leeg yahay aan ku taray kalaas biya amalna waa ku reebay kabsartan insha Allah fridge igu jirtaa mar horaan diyaarsaday mar walba xasdaa video ka tub la wadaaga saxaabtaada insha Allah channelkaaga soo kalin doona haduu Ilaahay yiraahdo hilibkiisa soo bislaada ma sha Allah kaale iska arag waxba laga ma qaban karo basal iyo barbarooni ku tirso saasoo ku diyaarsan yahay malawax ku cun rooti ku cun عيش كعن
wax walbo kala maasha Allah sida quruxda badan oo ku soo baxay insha Allah mala waxaan u gudbi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo. meeshan makiinada markii hore inaan ku isticmaalaan tamcay haddana waxaan isdhahay xurbinkaaga kaaga fiican ana makiinada haystaan mar walba xurbinka isticmaala ma karanayo sababta waa uga kalsooni badanahay way gacantayda inaan ku waxeeya keega ka xataa marar badan xurbinka ku waxeeya pancake sideedaba ani kuma waxeeyaba machine kuma sameeyo dad baa xataa makiinada cabitaanka ku sameeyo mala waxa aniga may weligeed kuma sameyn makiinada cabitaan waa ii dhimantahay makiinada cabitaan intaan ku shiido inaa ma taqaanaa mala wax tubo oo ii dhimantahay waxba kuma sameyn makiinada cabitaanka iyo waxyaabaha kale oo aan ka ahayn marka xurbinkaaga ka mudan dadka aan haysanin maasha Allah waxaan ku dhiirigelinayaa inaan makiinad waxba uga baahnayn qofkii makiinad ku waxaysanayaan isa ikhtiyaar lagu ku waxaysan karaa laakiin ani gacantayda waan uga kalsooni badanahay